أصحابي ميل كستا جوجتا waa salaamaya waxa u jeedaan halkani gabadhani waxay u shaqeysaa habar cajuuso ah habartaas cajuuso ah taa way ka shaqeysan la'aday marka aad maaragtay habar cajuuso ah u shaqeynayso waa iska dhibkaan maanta dhan way ugu ceysaa gabadhan waxa la yiraahdaa Zahra maanta dhan habarta cajuuso halkan ay fadhisaa waxay leedahay cabaarka bacdi Zahra kaalay waxaan ii doon Zahra kaalay waxaan ii doon Zahra waxaan ii keen maanta dhan way ku ciyaaraysaa istiinkeeda tusiyay inay ku ciyaarto gabadhaas iska shaqeysanayso gabadhana waa qof iska maskiin ah xoogeeda ku shaqeysanayso waa maaragtay waa qof caadi baariyad u ah si u xushmeynaysa arag daqiiqad ayay u wacaysaa oo waxay leedahay kaale waxaan ii keen waxa kaale waxaan ii keen hataa wax kale iska badaayay si naxariis leh ulama hadlaysay si qayle ayay ula hadlaysaa oo waxay leedahay Zahra kaale wariya kaale waxaan ii keen saanyar si oo aan maaragtay aan ku fiicneen nidaamka anshaxa ah ee hadalka wanaagsan aan ku fiicneen ayay ula hadlaysaa waa u jeedaan way sii baxda hadda waxay rabtaa alaabteeda inay iska soo dhaqato oo tartiib hoosheeda iska soo dhamaysato waa tan aleeg sabartan cajuusada ka shaqeysan laad wax hadda u wacaysaa way imaanaysaa waata way soo noqonaysaa waa tana hadda imaanaysaa waxa la Zahra kaale hawshaan samee okay gabadhii waa qof iska baare ah waa iska imaanaysaa daqiiqad bahday maqnaato waa loo waca kaale leedahay hawshaan qabo marka waxa ogaataan dadka qaarkood oo maaragtay ma aha dad loo shaqeyn karo ama loo dul qaadan karo ma aha maxaa yeelay si bini'aadanimada ka baxsan ayay dadka ula dhaqmayaan waa u jeedaan iyadoo hal mar adeeg abtaa maaragtay waxeeda qabsan karta mid kale ma aha qoftani qof aad da'w ah oo aad u weyn ma aha waa qof maaragtay waxyaalaha qaarkood iyada soo qabsan karto waa laakiinse waxay ka tahay xaasinimo ayay ka tahay waatana gabadhii way baxday hoosh alaabteeda soo dhaqan rabta waatana hadana waxay u dirtay boorso mar waxay u dirtay biyo mar miiska soo jiidatay mar miiska naga leexleed aad ayay ugu ciyaaraysaa gabadhana waa qof aad u dulqaad badan waa ujeedaan way soo celisay mar walba ay talaabo gediso gabadha way soo celinaysaa oo maaragtay hataa way ka shaqeysan la'aday dadka qaarkood oo loo shaqeynayo dadka waxay ula dhaqmaan si bini'aadanimada ka baxsan nooc doonana dadka isku mid inkastoo isku mid ahayn laakiinse dadka loo shaqeynaa badanaa waxay aaminsan yihiin in qofka markaas la joogo ay u tahay adoon oo soo doonta ula dhaqmi karto marka waa u jeedaan gabadhani hadda alaabtii iyadoo shaqadeeda caadiga gudanayso ay ka shaqeysan la'aday wax yar kadib way u wacaysaa wax yar ka bacd way u wacaysaa kaale ayay leedahay kaale waxaan ii qabo kaale waxaan ii sameey kaale waxaan ii sameey gabadhan waa qof iska daacad oo xoogeeda ku shaqeysanaysa mid kale kista lacagta ay qaadanaysa ayay fiirsanaysaa waxayna isleedahay ama shaqadan laga buriyaa ama shaqadan ka tagtaa ayay isleedahay laakiinse gabadha iyada faa'iido weyn bay meeshan ku qabtaa oo waxay leedahay shaqadan shaqo kaaga wanaagsan ma laha laakiin habartan ayaa nafta u keentay inta shaqada kale guriga ka jirto caadi bay u fiicantay laakiinse habartan ayay ka shaqeysan la'aday waa u jeedaan ugu yaraan 10 jeer way soo celcelisay intaasi waxay ka tahay iyada maaragtay inay maaragtay gumaysi ahaan ay ka tahay sababtoo qofka haddii maanta dhan oo aad hore gadaal u dhibayso waxa aad maaragtay ma la yacni ugu wacaysid ma waa dhibaato mana haboono marka waxaan dilayaa asxaabay meel kasta joogtaan waxyaalaha qaarkood hadii idin soo maraan oo ah in gurigaaga lagaaga shaqeynayo ama qof ku shaqeynayo waa inaad 100% naxariis u muujisaa nooco doona hada qofkaasi ya nooco doona hado waa inaad naxariis u muujisaa oo aadan si kibir ah qofkaasi aadan ula dhaqmin sida habartan cajuusada waa ujeedaan gabadhii hataa way ku daashay laakiin gabadhii mar walba waxay fiirsanaysaa waxay tahay shaqadeeda ayay ilaalinaysaa ayay dhowranaysaa oo waxay isleedahay shaqadaada asxaabay meel kasta joogtaan waxaan leeyahay bye bye